madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaadhan oo uu hogaaminayo ayaa maalintii shalayta ahayd ka ambabaxay madaarka Cigaal ee magaalada Hargeysa. asaate madaarka Cigaal wariyayaal u tagay inay duubaan muuqaalka madaxweynaha iyo waliba wafdigiisa looma ogolaan arrintaasina waa laga hor istaagay balse taabadalkeeda muuqaalka wafdiga madaxweynaha waxa soo duubtay madaxtooyada Soomaaliland taasi oo telefishinada u qaybisay Uruka Suxufiyiinta Somaliland ee Solja ayaa si weyn u cabaareeyay arrintaas laga hor istaagay wariyayaasha inay duubtaan wafdigaasi madaxweynaha ee tagayay waxaanu gudoomiyaha ururkaasi Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto si weyn uga digay arrintaasi isagoo fariina u diray madaxweynaha cusub. runtii waxyaabaha dambiga lagaga dhigay saxaafadda ama qaaradaadka Kenya waxa weeyaan in suxufiyiinta laga hor istaago xuquuqdii ay u lahayd inay war ka helaan. runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland cusub muddo kooban buu xilka hayay waa nin aftahana waa nin hadal yaqaan marka uu safar u baxayo hadii markii hore lagu cabin jiray wararka waana loo diidaana lama siiyo oo kale arrimo badan dartood laakiin maanta in waxay ahayd madaxweynuhu maadaama safarkiisii koowaad yahay safarkaasna aad indhaha loogu hayay madaxweynuhuna talaabadii koowaad u horeysay yahay inuu runtii ummadda u cadeeyo waxa uu ka doonayo dalka uu tagay ama meesha uu u baxay ama hawsha uu qabanayba. marka runtii waxaan u aragnaa in ay qalad tahay in suxufiyiinta laga hor istaago in war la siiyo hadii laga hor istaagana waxaan qabnaa dambiyada imika loo haysto saxaafaddu waxyaabaha ay ka dhalanayaan in arrimahaasi kow ka yihiin. marka waxaan ugu baaqi lahayn xukuumadda runtii in ay warbaahinta warka siiyaan intii aanay wada qaldan u marayn warka. geesta kale gudoomiye Xuuto ayaa si adag u cambaareeyay xariga laba suxufi oo ku xidhan gobolka Awdal. maanta maxkamadda gobolka Awdal waxa ay ku xukuntay laba wariye من لبسنا وحرجة إن لبدا وريو كلاه محمد عبد الله حسين درشد أو كشغية تي في كالسن يا أحمد ديري عيلتر أو كشغية تي في اس بي سي إن لبدا سي إن وريو ما أنت محكمة الجبل أوضل أي كحكومة من لبدا صنّو حرجة أرنتي مع محمد داود دوي تاجنيد إن هرنا وأوجه هذا اللي أرنتي إن كيس كاسي إن محكوم صعب سنة إن ور أي كباهية إن بر أي ليه إن ويب سايت هذا أما السوشيال ميديا إن أو كم باهين إن تي في ذاك الشغيان. marka طبعا kaas buu la xiriiriyay xarigood iyo dacwada loo haystay waxaan u aragnaa runtii xukun culus oo labada wariye runtii maanta ay maxkamaddu ku xukuntay kiiska lagu xukumay runtii kulli urur ahaan waxaan u qabanay looyaro u dacwoonay oo ka difaacayay sida looyaradii iyo wakiilka Solja ee gobolka noogu soo warrameen runtii ilaa hadda kiiskaasi lagu xukumay wuxuu ahaa kiis runtii عدينتيسنا أو بهرنتي إسلام مركانا رنتي مركا دين على جاهو سامين بدن كلها حالة بأمنية قبل كاسي أم جودهن سومالان ما دام وركاسي وكهد لي إذا ما لقيته بري قبل كأوضل أو أي ورياشة الشيئين. بدري كوسار محمود تلفيشة كايريال هرجيسا.